Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal. Waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa taariikh muhiim ah oo ku saabsan boqortooyadii hore ee Punt, taas oo masaaridii hore ku xuseen qoraalladii iyo sawir gacmeedyadii ay ku xardheen derbiyada macbadyadooda. Waa boqortooyo ay isku haystaan ummado kala duwan meeshay ku taalay sida Yamanta, Ereteriya iyo Itoobiya, laakiin markii loo eego waxay ku sheegeen ama ku qoreen masaaridii hore, sida magacyada boqorkii iyo boqoradda ay u tageen, waxyaabihii ay kasoo dhoofsan jireen, labiska iyo guryaha ay ku noolaayeen, waxay caddaynaysaa inay Soomaali ahaayeen. Markii ugu horreysay ee la maqlo boqortooyadii Punt waxay ahayd qarnigii tobnaad ee taariikhda miilaadiga ka hor, sida ay qoraalladooda ku xuseen Faraaciintu. In ka badan 1000 sano, Faraaciintii Masaaridu waxay xiriir ganacsi iyo mid diini ahba la lahaayeen Punt. Waxay ugu yeeri jireen dhulkii ilaahyada, waxayna u arkayeen meel laga keeno barako iyo naxariis rabbaani ah. Intii lagu jiray xukunkii boqortooyadii Xayabsut, safar aad u weyn ayaa loo diray dhanka Punt, waxa uuna ahaa safar taariikhi ah, la qorsheeyay, lagana sameeyay sawirro aan weli baabi'in. Derbiyada macbadka Deir al-Bahari ayay weli ku xardhan yihiin sawirro maraakiibta Faraaciinta oo badda cas dul sabaynaya, geedo malmal ah oo la rarayo, luubaan, dahab iyo hadiyado kale oo laga keenayo dhanka Punt. Marka la eego sawirradii Faraaciintu ka sameeyeen dadkii Punt, waxay ahayd mid qurux badan, nidaamsan, isla markaana leh sooyaal la yaab leh. Dadkoodu waxay xiran jireen dhar jilicsan, timahooda way qurxin jireen, waxay ku noolaayeen guryo qurux badan, waxayna u ekaayeen dad leh farshaxan iyo faham nololeed oo sare. Hantidooda ugu qaalisan waxay ahayd malmal iyo foox, ma ahayn kaliya cadar, waxay ahayd wax lagu shido macbadyadooda, lagu sharfo boqoradooda, laguna beddesho dahab iyo lacag. Ganacsiga u dhexeeya Punt iyo Faraaciintu ma ahayn ganacsi caadi ah, wuxuu ahaa mid ku dhisan cibaado. Wadaadada Faraaciinta Masaaridu waxay fooxa iyo malmalka Punt u adeegsan jireen xuska ilaahyadooda. Maraakiibtoodu waxay mari jireen badda cas, dabaylaha iyo khatarta xeebaha si ay u gaaraan dhulka barakaysan. Waxa la isdhaafsan jiray ma ahayn wax kasta, waxay ahaayeen hadiyado barakaysan oo leh qiimo ruuxi ah.